Waa goor barqa ah, waxaan fadhiyaa meel meherad ama macmacaanle ah, meelaha soft foodska laga cuno. Dhinacayga bidix waxaa fadhida gabadh aad u qurux badan. Markaad eegto muuqeeda, labiskeeda, gacmaheeda dahabka ku xidhan iyo siday u dhalaalayso, mararka qaar waxaad kala garan waayeysaa dahabka u xidhan iyo midabkeeda. Xaadeeda ayaad xabad xabad u tirinaysaa, isla markaana waxaad garanaysaa inay tahay qof ladnaan iyo nimco ku nool. Waxay ku hadlaysaa telefoon, waxaanay ka hadlaysaa arrimo guri iyo kiro iyo lacag ay dadku leedahay. Hadalkeedii waxaan ka xasuustaa, haddii uu lacagta bixin waayo alaabtiisa ayaan bannaanka ugu daadinayaa. Waxay dalbatay beergeel iyo cabitaan cambe ah. Haddii loo keenay oo ay sidaa u dhadhamisay, ayuu wiilkii shaqaalaha ahaa cod dheer oo cadho leh ugu yeedhay. Waxaanay ku tiri, war iga qaad, waxaan ma cuni karaya. Wiilkii si degdeg ah ayuu uga qaaday, isagoo weliba raali gelinayo oo kale, marwa maxaan kuugu soo bedelaa. Sidoo kale dhinacayga midig waxaa fadhida gabadh kale oo da ahaan aan gabadha hore ka weyneyn. Labadoodaba waxaan ku qiyaasay 5 dhal ilaa 4 dhal meelaha, laakiin gabadha duruuf baa ka muuqata. Haaraha wejigeeda, dildilaaca iyo jajabka gacmaheeda ka muuqda, dharka ay xidhan tahay oo aad u jeexjeexan iyo midabkeeda oo aad isu bedelay. Waxa u dheeraa afkeeda oo aad u jiilay, oo aan u maleeyay inay meherada naf kula soo eeratay baahi haysay darteed. Waxay dalbatay 2 xabo oo sambuus ah, wax cabitaan may raacsan. Markii wiilkii uu keenay ayay ku tiri, hooyo waa qabow ee maad iga soo diirisid. Isla markaana wiilkii wuxuu ku yidhi, waxba lama diiriye bahalka cun. Markuu sidaa ku yidhi, way kacday oo meheradii way iskaga baxday. Meesha aanu fadhinaa waa meel aad u yar, isla markaana labadaa dumar ah waxba uma dhexeeyaan. Aad bay mid walba ta kale oo arkaysaa, u maqlaysaa waxa ay dalbatay iyo waxa ay diidayba. Anigu waxaan ilaaway inaan wax dalbado, dhabankayga iyo gacantayda ayaa isku qalalay. Waxaan ka fikirayaa oo aan ku maqanahay labada xaaladood ee midigtayda iyo bidixdayda ka socda. Waxaan isweydiinayaa, ilaahay miyaanu odhan waan isku keen eegayaa. Waxaan kaloo isweydiinayaa, eegistaasi ma waxay ahayd inaynu isugu naxariisano waxa ilaahay ina siiyey ee maal ah, mise inaynu isugu faano oo isugu dhoola tusano sidii labadii nin ee ilaahay suuratu Kahf ku sheegay ee midkood uu midka kale ku yidhi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا كمان نحسني gabadha miskiinta ah iyo xaalkeeda, waayo ilaahay baa sidaa u gartay, balse waxaan u naxsanahay tan kibraysa, waayo ishu waa xaq baa la yidhi. Waxaan gudaha iska leeyahay, alla may hadallada ka tidhaahdo meel aanay tani joogin, iyo talo gurigeedii caafimaad ma ku tegi doontaa. Lacagtu dadka way indhatirtaa, ilaa keena shaqaalaha ah ayaan isku sii ugu adeegayn labadaasi qof.